iyo jiliinkuwa waa mid ka soo maaxatay dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku nool degmada Xamarweyne kuwaas oo si ku dhow hab jiliinka shirkadda Hollywood u sameeyay filimkan oo magaciisu yahay Afduub. wuxuu kulminayay filimkaas anigoo ah qof oo ganacsada ah shaqo Malaysia lagu diraayo kadib tuugo si target ahaan ani target maadaama ani baxay xaaskaygu target gareeyaan marka xaaskayga ayay afduubanayaan aniga li soo sheegay xaaskayga ii soo sheegayso sidaas aan dalka dib ugu soo noqonaan ayaga raadsanaya sheekada filimkan waxay ku saabsan tahay nin dhalinyar oo ganacsada ah horumarkiisa aawgeedna ku mutaystay cadow fara badan isaguna uusan war u haynin cidda cadowga ku ah kooxda olka qarsan ahay waxay si ay u majagooyaan horumarka ganacsi ee Maxamed Jeylani ay u bareerayaan inay afduubtaan xaaskiisa si ay u helaan madax furasho waxaad sameynaysaa qadka waa inaad si toos ah ugu jirtaa marka hore taleefanka haysi saarin hadda janjarada ay soo fuulayaan adiga waxaan ka rabaa inaad qolka hadda ku jirto aad ka baxdo qolka kale fadhiga waa inaad gashaa albaabka laabkiisa wiliba waxaan ka tarjumaynaa magaalada Muqdisho inay tahay magaalo fiican oo dadka waxay ka aaminsan yihiin wadan burburay oo macna baabaasan ay ka aaminsan yihiin marka anaga waxa ku soo bandhignay meelo badan bilicdeeda oo aad u fiican tahay oo Muqdisho dhexdeeda ah Maxamed Jeylani wuxuu dadaal dheer ku bixinayaa inuu soo badbaadiyo afadiisa laga afduubtay laakiin kooxda ay gabadhu gacanta ugu jirto waa dad halis ah oo hubaysan diyaarna u ah inay isagu dilaan filimkaas oo jeedid runtii anaga dhalinyaradeenna anaga ahaan ayaan isqarash gelinay anaga isxilqaamnay gaariyaashaas iyo wax walba oo professional filmku isticmaalnay anaga dhalinyarteena oo filimka ka kooban aan anigu horseed u ahay filimka anaga iskeena u maalgashanay Soomaaliya wariyada idinka waxaan u baahanahay ninkan hilibkiisa inaad jarjartaan dareen ahaan iyo sida ay ugu caaboonayeen jiliinka filimkan ayaa waxa ay sahashay inuu noqdo mid aad loo xiiseeyo filimka waxa kamid ah waxyaalaha ku jilay oo dhahay laabarnimada ninkan in aan macnaha argagixiyo oo nin ganacsato weyn oo ku biirada markaas waxaan dhahay ninkan hilibkiisa iyo jarjara waxaan amraa ragga iga tirsanaa ninkan hilibkiisa iyo jarjara asoo joogaan arko intaas waa laabarnimada ku jira dhalinyaradan oo soo saaray dhowr filim oo gaagaaban ayaa weli ku haminaya inay dadaalkooda ka badiyaan sida hadda yahay si ay madadaalo ugu sameeyaan dhalinyarada Soomaaliyeed. Munasar Maxamed Cabdi, Universal TV, Muqdisho.